haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku daran yahay fadlan ha fiirso. sheekadani waxay ku dhacday wiil magaciisa la yiraahdo Sakariye 13 sano ka hor markii uu yaraa faamiligiisa waxay u soo guureen magaalada. Sakariye markii uu magaalada imaaday waxay isbarteen laba cunug oo hore magaalada u degnaa. labadaas cunug ayuu la saaxiibay, meel kastana way isku raaci jireen. Sakariye iyo labadii cunugna waxay noqdeen saaxiibo aad isku jecel oo meel kastana isku raaco, meel kastana iskula ciyaaro. Sakariye iyo asxaabtiisa meesha carruurta sidii ugu ciyaarayeen way ku daaleen wayna ku caajiseen. Kadib waxay tageen qashin weynaha si ay ugu ciyaaraan. Sakariye hooyadiis ayaa aragtay wayna ku qaylisay, waxaana dhahday kasoo degoraya meesha, soo bax gurigana aad. maalinkaas Sakariye hooyadiis aad ay ugu qaylisay. maalinkii labaad Sakariye waxa uu soo laabtay meeshii asxaabtiisa isku arki jireen, laakiin asxaabtiisa wuu waayay. kadib gurigooda ayuu u tagay. mid ka mid ah saaxiibadiis hooyadiis ayaa diiday inuu soo baxo, midkii kalena wuu soo raacay. Sakariye iyo hal qof oo saaxiib isla yihiin kaliya ayaa soo raaceen meesha ayayna ku ciyaarayeen. siday ugu ciyaarayeen meeshii ayay ku caajiseen. mar labaad ayay waxay go'aansadeen meesha qashinka in ay galaan. waqti dheer ayay qashinka ku dhex wareegayeen Sakariye iyo saaxiibkiis. sidoo kalena baabuurta jajaban iyo alaabaha jajaban ayay ku ciyaarayeen wayna dhex galayeen. kadib waxay dhaheen waxaa tagnaa qaybta talaajooyinka ama filjiirada. kadib waxay isku soo raaceen qaybta qashinka ee talaajooyinka. kadib waxay arkeen nin meesha ku jiro. Sakariye markuu ninka arka aad ayuu cabsaday, laakiin saaxiibkiis ayaa wuxuu dhahay ninka qashinka shaqeyle waaye ee waxba ka baqin, ee kaale armaajadan igu xir, kadib waan ka soo baxayaa. haddana qaladkiisa ugu weynaa uu galo waxay ahayd armaajadaas uu iska galay. Sakariye laakiin wuxuu ku yiri saaxiib ha gelin, waxaa laga yaabaa inay kugu xirmato aan furi waayo. laakiin Sakariye saaxiibkiisa wuxuu dhahay xataa hadday igu xirmato dadka xaafadda iyo hooyaday iyo waalidkay u wac si ay iga furaan. laakiin Sakariye wuxuu ka cabsanayay meesha wiish ayaa joogay, wiishkaasi inuu armaajada wado iskana qaado qashinka meesha lagu jijibiyeyna geeyo. kadib Sakariye saaxiibkiisa sanduuqa ayaa ku qataarmay uuna iska furi waayay. kadib Sakariye ayuu u wacay. Sakariyena sidoo kale asna wuu ka furi waayay. si kasta wuu sameeyey, albaabkiina wuu furi waayay. kadib Sakariye saaxiibkiis wuxuu ku dhahay xaafadda tag hooyaday igu wac, ama si kaleeto hooyada u soo sheeg si meeshaan lagaga furo. Sakariye sidaas ayuu saaxiibkiis ku dhahay. kadib Sakariye haye ayuu ku dhahay meeshaan igu sug, waxba ka baqin, aniga ayaan ku imaanaya. kadib Sakariye wuu soo cararay, wuxuuna u soo cararay gurigiisa si uu hooyadiis ugu sheego in la soo badbaadiyo cunugaas. Sakariye hooyadiis markuu u imaaday aad ayuu u baqay, sababtoo ah hooyadiis maalinka koowaad oo qashinka aadayay aad ayay ugu qaylisay, waxaana u sheegtay mar labaad hadduu u laabto qashinkaas in ay garaacayso. asigoo ka walwalaya ayuu haddana wuxuu u walwalay nafsada saaxiibkiis. kadib wuxuu go'aansaday in uu u sheego. isla markii albaabka waxaa soo gargaraacay Sakariye aabihiis oo gacanta ku wada dooro. Sakariye doorada aad ayuu u jeclaa. kadib wuxuu is dhahay haddii aad u sheegtid doorada ayaa lagu diidayaa, waan lagu garaacaa. kadib wuxuu go'aansaday doorada markii uu cuno kadib in uu u sheego. dooradii markii uu dhammaystay wuu hilmaamay wuuna iska jiiftay. subax markii uu soo kacay waalidiintiisa waxay dhaheen dalxiis ayaan u soconaa ee man raacaysaa. haye ayuu ku dhahay. aad ayuu u farxay Sakariye wuuna iska soo raacay waalidiintiisa. kadib Sakariye iyo waalidiintiisa waxay tageen meelo aad u qurqurxan, magaaladii oo dhan way kusoo wareegeen. kadib waxay kusoo laabteen gurigooda. guriga markii ay kusoo laabteen Sakariye weli maskaxdiisa kuma soo dhicin, waxaana laga joogay maalinkii labaad wuuna iska jiiftay. maalinkii labaad markii uu soo kacay waxaa loo diray iskuulka Sakariye. kadib iskuulka markuu imaaday ayaa wuxuu arkay saaxiibkiis hooyadiis oo raadinayso wiilkeeda. kadib Sakariye aad ayuu u naxay, sababtoo ah saaxiibkiis meeshii ayuu ku hilmaamay. 2 maalin ayaana kasoo wareegatay.
aad ayuuna u baqayay, sidoo kalena asiguu is eedeynaya Sakariye. wuxuuna usoo orday meeshii qashinka ahayd, isla markiina wuxuu tagay qaybta armaajooyinka. meel kasta oo armaajo ay taalana wuu ka raadiyey, wuuna ka waayey. Sakariye aad ayuu u naxay, sababtoo ah armaajadii meesha waa laga qaaday. wuxuuna ka baqay in uu qaaday wiishkii meesha wareegayay. laakiin Sakariye hore kama niyijabin, wax badan ayuu raadiyey, meel kasta ayuuna ka raadiyey armaajadii, wuxuuna ka waayey armaajadii. aad ayuu usoo niyijabay Sakariye. kadib iskoolkii ayuu kusoo laabtay, macallinkii ayaana ku qayliyey, waana la canaantay. kadib galaaskiisa ayuu isku fadhiistay asigoo aad u welwalayay, saaxiibkiisna aad ugu baqaay. maalinkaas maalin xun ayay u ahayd Sakariye, naxdin iyo welwalna way ku jirtay. xataa cuntadii si fiican wuu cuni waayey. wuxuuna ku fikirayay, hooyadaa miyaad u sheegtaa arrinkaas mase saaxiibka hooyadiis? Sakariye isla markiiba wuxuu ka baqay hooyadiis hadduu u sheego inay garaacdo, saaxiibkiis hooyada dhasha hadduu u sheegana wuxuu ku fikiray in aysan dhaafaynin oo kow ay ka siinayso. aad ayuuna u baqay. kadib Sakariye wuxuu go'aansaday in uu qofna u sheegin. 13 sano kadib, Sakariye asigoo maraya waddada ayuu wuxuu ku arkay saaxiibkiis hooyadii dhashay oo weli raadinaysa wiilkeeda oona ka niyijabin. run ahaantii Sakariye wuxuu galay khalad aad u weyn. arrinkaasna ilaa hadda maskaxdiis kama baabi'in, mar kastana wuu soo xasuustaa. wiilkaasina armaajadii uu ku jiray waxaa qaaday wiishkii, inkastoona la ogeyn inuu cunug ku jiro. meesha qashinka lagu burburiyey ayaana la geeyey. waxaana uu Sakariye ku fikirayaa in uu saaxiibkiisa halkaas ku dhintay. fadlan ha hilmaam inaad videoga like garayso. 포기하고 싶을 때도 나는 왜 기억나지 너의 미소와 뒤태